sanad walba marka la gaaro xilliyada roobka waxaa aad u bata dadka u dalxiis tagaya duleedka baadiyaha ah ee magaalooyinka ka baxsan si ay ugu soo ildoogsadaan cagaarka iyo biyaha xareedda ah ee balliyada jiifa. dhalinyarada magaalada Gaalkacyo ayaa iyagoo koox u socda baryihii u dambeeyay u dalxiis tagayay duleedka magaalada oo ay roobkii dayrtu biyo dhigeen dhulkuna uu yahay doog. waxa inta ay dalxiiskooda ku jiraan isku maaweeliyaan suugaanta qaasatan heesaha qaaraamiga ah ee kabanka degan lagu laray. hadan qodo anfaa'iga hadan qodo anfaa'iga hadan ku qabooba marka qulu dhaqaaqde talaabada ad qaade daymada ilqabad kale iqoran sigta qosasha naftaydiye shimbiriyo dawafi kudul jooga la'aanto aan ku dan sheegtoon dood kulahaade ruuxaan ku daalo laydiidan yahayo ruuxaan ku daalo laydiidan yahayo anna aanan daynayn yaan doonayaayo dawadaydu noqotee anna aanan daynayn yaan doonayaayo dawadaydu noqotee. dhalinyarada magaalada Gaalkacyo oo safar gaaban magaalada uga baxeen waxa ay ugu magac dareen deegaan barasho ayaa ujeedka ay ka leeyihiin sheegay in dadka la tuso barwaaqada taala dhulkeena uguna maarmaan dhulalka shisheeye. joogna duleedka magaalada Gaalkacyo halkaas oo u joogno dalxiis iyo deegaan barasho annagoo ujeedada safarkan uu yahay sidii aan ugu soo bandhigi lahayn bulshada Soomaaliyeed meel kasta oo joogaan nimcada Ilaahay subhanahu wa ta'ala uu nasiiyay iyo quruxda wadankeena ayaan waxaan u soo baxnay duleedka magaalada Gaalkacyo arkaysaan quruxdeeda iyo sida ay tahay waxaan ugu baaqayaa dhammaan dhalinyarada Soomaaliyeed meel kasta oo joogaan inay wadankooda ku qancaan wadankeena dadka iska leh waa dhalinyarada dul waa dhalinyaro ayaa la dhahay marka muhiimadu waxay tahay si wadankeena dhalinyaradu ay ugu qancaan oo ugu maartay ay ugu faraxsanaadaan in loo maartay loo sameeyo dhiirigelin iyo wadankii lagu dhiirigeliyo inay wax ka qabsadaan. waxaan aaminsanahay haddii dhalinyarada Soomaaliyeed ay ka go'naansho muujiyaan oo qof walba commitment uu ku yahay si wadankiisa ugu qabsan lahaa wadankeena inuu yahay wadan barwaaqo horumar leh in macnaha dhalinyaradu ay noqon karaan hormuudka ummadda Soomaaliyeed ayaan aaminsanahay. taasina waxay ku imaan kartaa in la helo dhalinyaro ay ka go'an tahay inay wadankooda wax ka qabsadaan dalkooda iyo deegaankooda wax u qabtaan. waxaan leeyahay markasta iyo meel kasta oo joogtaan dhul waa dhalinyaro soo dhawaada. maanta waxaan ku faraxsanahay ama halkaan u joognaa waa dalxiiskaas oo ah Gaalkacyo baadiyeeda oo maasha Allah aad roob gudaay waan ku faraxsanahay maanta in dalxiiska imaado dhalinyaro badan aan soo raaco aad ugu mahadcelinaya dhammaan dhalinyarada aan soo raacay magaalada Gaalkacyo meel kamid ah dalxiis aan ku joogno dalxiisayaasha dhalinyarada magaalada run ahaantii magaalada dhalinyaradii looma kala harin dhalinyarada gobolka hadii la dhalinyarada degmada dhammaan dhalinyaradii dhan waxna meeshaan galabta aan ku shaxaynaa ku gafaaxinaa ku baashaalayna dalxiiska magaalada aad u wanaagsan tahay. rumaantii waxaan dhilahay qof kasta oo waxa weey macnaha yacni wadankiisa inuu kalsoonada loo baahan yahay oo wadanka oo dhan dalxiis loo soo aado meel kasta qof walba inuu macnaha niyeysto in macnaha meel kasta dalxiis loo soo aado magaalada waxa weey dalxiiskeedu soo baxno waxay noqotay maantay meel aad iyo aad u qurux badan ayaa nimid dhalinyaradu aad iyo aad ayay u faraxsan yihiin inay banaanka magaalada ugu soo baxaan markii la iskaashado dhalinyarada magaalada iskaashato sidaan oo kale wax qurux badan ayaa imaanaya dhalinyarada magaalada Gaalkacyo waxay aad iyo aad ugu faraxsan yihiin inay magaalada markay ay fasaxa maalmaha fasaxa oo kale ay leeyihiin inay magaalada banaankeeda yimaadaan sidaan oo kale ugu caweeyaan qaaciga tuntaan markay dalxiiska ugu soo baxaan sidaan oo kale aad baan ugu faraxsanahay. dalxiiskan ayaa dhalinyarada magaalada Gaalkacyo waxa ay ku tageen duleedka magaalada Gaalkacyo maalmaha ay fasaxa leeyihiin khamiis iyo jimce ayay maalin walba u dalxiis tagaan duleedka magaalada. maxamed bixidiin saxasuxo Galmudug TV Gaalkacyo.